بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أخوتي في العقيدة، أولا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ثانيا waxaan u mahadnaqayaa bacd allahi subxaanahu wa tacaala walaalada diyaariya kulankan iyo markaska reer abu hurayra maamul iyo shacabkiiba. marka labaad, haddii aan dariskan bilaabo, dariska lay dhiibay waxaa la yidhahaa miftaax asacaada azawjiya, furaha badhaadhaha qoyska ama sareedada qoyska. qoyska muslimka ah inuu liibaano oo uu badhaadho ku noolaado ama sareedo ku noolaado, furaha wuu u baahan yahay. asal waxaa islaamka aynu garanaynaa inuu yahay nidaamkii alla soo dejiyo lagu dhaqmo, sidii alla uu doortay dadku inay u dhaqmaan, rag iyo dumar, qoys mid yar iyo mid weyn, in loo dhaqmo. laakiin waxaan isku dayeynaa bal bacd alashyaa inaan tilmaamno. waxaynu tilmaami karnaa ziwaajku ama guurku waa sharika bayna zawjayn, ama waa nolol ay wadaagayaan laba qof oo markii hore ajanabi kala ahaa, dabeetana isaga raalli noqday inay nolosha isku darsadaan. waxay yidhaahdaan shirkadaasi waxaa asal u ah ra'samaalkeeda koowaad bay yidhahdaan huwa alxub. shirkadaasi ra'samaalka keliya ay leedahay ee asalka ka ahi waa kalgacal. ilaahina subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya fi suurati alacraaf: huwa aladii khalaqakum min nafsin waaxida wajacala minha zawjaha liyaskuna ilayha. ama fi suurati aruum: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إلهي وحت الماما يا سبحانه وتعالى، إلهي آيات كيس ووين اللغوغرت وحكم ده أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، إن ورقة ama aadam calayhi salaam laga soo bilaabo uu ka abuuray ama uu u yeelay lamaane. lamaanaha waxaa laydinku yeelay baa layidhi litaskunuu ilayha, inaad ku xasishaan. asalka guriga markaa waxaa asal ka ah in loo dhisto lilitminaani waasukuuni waalraaxa, qofku inuu dego oo xasilo oo meel nolosha dhibteeda kale uu ku soo ilaabo ay noqoto, meeluu nashaad iyo firfircooni ka qaado marka uu ka baxaya inay noqoto. ilaahina wuxuu tilmaamaya wajacala baynakum mawaddatan waraxma, dhexdiinana waxaa alla yeelay subxaanahu wa tacaala mawadda, kalgacal iyo naxariis baa la yidhi. kalgacal iyo naxariis. waxaynu markaa isku dayeynaa sida qur-aanku tilmaamayo xidhiidhkaasi guriga ka dhexeeya ama ninka iyo haweenta uu qabo ka dhexeeya waa xidhiidh xeel dheer oo waxyaabo badan tilmaamaya.
إلى حد إلهي كنت المامية هن لباس لكم وأنتم لباس لهن هبا أتهين إذنكو هوين كان قبطان هوين إدادنا هبا يكوتي دركو قفك بني آدم كاي صدح شيء بوقاتا أولا وحوقاتا عاديات الحياة نسكي عليه كليل قبو واحد شراء نسكي قربو ثانيا وحوقاتا لستر عورتي سينو كو أسطرته ثالثا وحوقاتا للزينة وللتزين إنو إسقرحيه نينكا يقبردو انتبا ويسويين صدح ذا الشيبة نينكا يقبردو ويسويين ومال وقفكو هدو نيني يهدو قبردي هيبا وكدقو كو حصله ومال وعوردي سيا سرتي سيا وحا وقرصانا دان وكو كايت صدا ودكتو ومال وقروح دي سكو موشيو إذن قفكو wuxuu qurxoon yahay markuu yahay qof reer leh oo degan ayuu nolosha quruxdeedii iyo dhadhankeedii haya saa daraadeed baa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa ragga iyo dumarku inay libaas isu yihiin dhar inay isu yihiin gurigaasi sidaa ilaahay qur-aankiisa ku sifeeyey waa kalaamu rabbi alcaalamiin gurigaa ilaahay sidaa ku sifeeyey ee ku tilmaamay in hullaysu yahay ama in lagu xasilayo ama in mawadda iyo raxma dhexdooda ay taalo ayaa waxaan isku dayaynaa gurigaasi inuu sii jiro waxyaabaha keeni kara ee sacaadada iyo badhaadhaha ka muujin kara waxaynu leenahay dhowr shay baa jira dariskan intiisa badan waxaan isku dayaa inaanan ka hadal xuquuq iyo waajibaadka iyo baabkaasi laakiin waxaan ugu horraysiinayaa ka hadlayaa fannu tacaamul qaabka wada dhaqanka qaabka wada dhaqanku maadaama asaaskiisuba uu xub iyo kalgacal yahay waa inuu ku salaysnaadaa kalgacalkaasi iyo sidii loo xoojin lahaa jacaylkaasi ama kalgacalka ama isu hilowgaasi inuu beermo oo koro oo kobco sacaadadu markaa waxay ku xidhan tahay in laga ilaaliyo munaqasaadkiisa ama waxyaabaha waxyeelaya in la taqliiliyo kalgacalkuna waa wax la beero sideedaba xubbiga waxay yidhaahdaan kalgacalku waa tilka alxaala alatii tusbix fiiha sacaadatu shaksin aakhar daruuriyatan lak waa xaalad bay leeyihin qof kale liibaantii adiga ay daruuri kuu noqoto aad ku farxdo qofkan aad kalgacalka u haysee jeceshahay waxaad la jeceshahay wanaag oo dhan waa xaala aad qof kale rabto liibaantiisu adiga ay ku farax gelinayso waxaan rabaa markaa laba dhan inaan ka sawiro dhan inaan ka sawiro ninka dhan kale inaan ka sawiro gabadha marka aan taa tilmaamayo awalan kalgacalka iyo xubbiga ninka iyo gabadha u dhexeeya inta badan dadku markaa jacayl iyo kalgacal iyo muxibo iyo cishq iyo warkaa marka la sheego dadka inta badan waxaa ku soo degdega caqligooda mas'alat aljamaal quruxda iyo dhismaha qofka iyo hay-adiisa nacam quruxda iyo cadamada iyo weynida iyo waxaasi waa fitrada insaanka bay ka mid yihiin sideeday fitriyan bay ay maxbuub yihiin waayo ilaahayba qur-aanka markuu inoo manno sheeganayo ee la sheegay xoolo in laynina siiyey oo ilaahay inoo abuuray oo aynu wax ku raranayno oo ku guurayno ayaa la yidhi walakum fiiha jamaalun xiina turiixuun wa xiina tasraxuun qurux baa idinku sugan xoolu markay sii dareerayaan iyo markay soo dareerayaan baa la yidhi yacni jamaalku waa shay fitrada asalka qofka bini aadamkaa ka mid ah laakiin gurigu jamaalkaasi ku saabsan hay-ada iyo bidhaanta waxaa ka muhiimsan jamaalu lafcaal waxa la yidhaahdo quruxda dhaqanka ka muhiimsan quruxda dhaqanku ama jamaal lafcaal ayaa sameeya kalgacalka joogtada ah waayo jamaalka jasadiga sare ee muuqda waxyaabaha ugu horeeya lumaabu ka mid yahay marka muddo la wada joogo da'ba iska socota sadaradeed waa tarahulaat baba waa muuqaalkii hore isbedel baa markiiba ku yimaada
laakiin waxa loo baahan yahay inuu gurigu ku dhisnaadee kalgacalkiisu ku salaysan yahay waxa weeye ka asala jamaal alafcaal. sida awgeed reerka saciidka ahi bay yidhaahdaan waa reerka shuclat alxubbi aanay marna gamaarin. shamaca kalgacalku waa reerka aan la daminin bay yidhaahdeen aanu damin. si kale marka loo tilmaamo waxyaabaha dadka isku xidhay caatifada ahi waa reerka aanay marnaba naaqusin. laakiin ma aha shaygaas shay sida wajbat alghadaa inta mar la isu dhigo la dhergo saa la ahaado. walidaalika waxay yidhahdaan xubbiga iyo kalgacalku waxaa laga yaabaa caawa inaan ku hadlayo luqo ay ku fiican tahay intii guur ku jirta un inay dhegaysato amase inta haabaabanaysa ag joogta. walidalik maadaama sacaada zawjiya aan ka warramayo waa runtii luqo gaara. waxaa la yidhahdaa kalgacalka waxaa loo yaqaano sidiisaba wuxuu leeyahay funuun. kalgacalku ama jacaylku wuxuu leeyahay funuun lagu taqdiyeeyo ama lagu beero qaab loo koriyo loo kobciyo. mithaal aan axaadiista nebiga iyo ku noqono sunnada nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh iyo qur-aanka waxaa laga yaabaa inay inta badan dadka ay agtooda qariib ku tahay iyadoo jacayl nin iyo gabadh dhexdii jooga laga warramayo in haddana qur-aan iyo xadiis aanu kutubulfan kama warramayo. laakiin waxa aan tilmaamayo o dhami waa waxaan daliil uga keeni doono min kitaab illaahi subxaanahu wa tacaala iyo min sunnati nabiyi salawaatu ullahi wasalaamu calayh ama dhaqankii nebiga iyo saxaabada iyo dadkii wanaagsanaa. kalgacalku wax beerma horta inuu yahay nebi maxamed baa wuxuu tilmaamayaa ashyaa dadka muslimiintii hadday sameeyaan isjacaylkooda uu badanayo. مثلا النبي يقول عليه صلوات الله والسلام عليه تهادوا تحابوا حديثك صحيحة هديات كيساسية أو بحيث هدية واسجعلها إنسان يعني إن هدية الله يساسية وحي كم تهي وحيارها بيره دتكو إن الرال إسكن نقضان وحريد في عن وكالقعل ودحمره وحكم إذا النبي يقول صلوات الله والسلام عليه حديث كيسنا صحيح مسلم كيالي لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. جنة قال لي ما يسامبوا النبي يقول لا يا إيمان لا يدين كهل موياني إيمان لا يدين كهل ما يا إلا يا محي أشجعلاتان موياني. هذا النبي يقول حط المامي كالقعل كاسي مسلمين تدحدوا دقليا سدوا أكر لها أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. ما يدين تصيابوا النبي يقول لي صلوات الله وسلامه عليه أعمال يا أفعال هذا سميسان أشجعلان إنسان وحنا النبي يقول أفشوا السلام بينكم. سلامت بديع سلامت وكلامك طيب كي هلكو كبل عمه قفك ولا الكاي مركا صهر بها السلام عليكم من كنت هذا وهذا الدعاء نيسا قفك انت كوي السلام عليكم معناه يدو حويا ربي هكو دوره قفك انت كاسهر بحي كوغو بلابا يا هذا الهي بان كبر يا إنكو إلاليه وقفك القعلو كووضه hadduu kugu celceliyo markaas si kasta aad u caraysnayd hadduu imka assalaamu calaykum ku yidhaahdo haddana hadhow markaas ka soo horbaxda assalaamu calaykum ku yidhaahdo laba saddex jeer haddaad afka buurto marka dambe waad iska nafisaysaa wacalaykum assalaam baad leedahay. yani waa qof muslim oo markaa soo horbaxay ilaahay kuu baryaya rabu samaawaati walardi qof kuu weydiinaya inuu ilaahay ku dhowro kama adkaysan karaysid marka dambe. yani nebi maxamed wuxuu tilmaamaya salawaatu ullahi wasalaamu calayhi marka inuu xubbigu wax la beeri kara yahay dadku inay isjeclaadaan wax la beeri karo oo kalgacalku beerma inuu yahay. bale quraanka ilaahay wuxuu leeyahay idfac billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adaawa kaannahu waliyyun xamiim baa ilaahay yidhi marka xuma lagugu sameeyo wanaag kaga jawaab baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala. oo maxaa dhacaya fa idha alladhi baynaka wa baynahu adaawa kii colaadu idiin dhaxaysay wuxuu noqonayaa buu ilaahay leeyahay kaannahu waliyun xamiim ay sadiiq qariib oo ku jecel ayuu soo baxaya. qofkii dhibta kuu geystay ee kaa filayay inaad ka aargudato ama aad ka aargoosato ama aadna aad cala alaqal fain caaqabtum bimithli inuu sugayay intii uu kuu geystay in lag cala alaqal inaad u geysato haddaad weliba wanaag u gasho waxay keensanaysaa qofkaa agtiisa inaad dib lagugu soo hadal qaadin daa inuu isagu wax ku yidhaahdee ويرى ورنكاسي أبال بيقولي بران وحاي وحا كسميو هدنا ونقاسو إيقالي
سدرادين محن مسائل كانوا تلمامية وحويان حبك فطري هوري والله يا با إنن ينن كستو إسكور سنة يا مركي إسكور سين إن كالقع الفطري نحمر وصور تقال لكن إنو كاسي تشوكتا هذا وقريغان السعيل كاسي وكون نولاده وهدي دادكو قبوبان أو لقبوبو أو سيدي تعيل كوشوغا وحوبا هي أفعال يردقن أبوريا إنو كالقع الكاسي شوغا وطا مسألة دا وباهان مركاسي إن وحلا يسكا ويديو ولا تلمامو وطا مسألة دا انسكو دايا مركا وحي الله كفو دايديو سبحانه وتعالى إنا صورنا قليام سيسيو قوريو إذن كالقع الكاقويسكي يقوريو ومطلب أما وأرن أباهن صناعة مشتركة بين الزوجين وهالشيء أباهن نينك إيا قبردو بإنا وضبيران وحانسكو دايا مركا كلمات الحب والعاطفة الجياشة أي كم وغطه إن انكسر النقلية من كلام علماء سلف قرى إن انكسر النقلية علماء دي هراء مسلمين تا إيا وحيابا يساتن كيداهدين أولا وهي علماء دو يدادان كالقعلكو كو أنين إيا قبردو كالقادنو قبردو هوينيدو إني نكيدا جعلاته وجعيل دبا جعلاته ومن الدين وانا الصفة ننكونا وجعليه هدو قبرديسا كالقعلكو هايستو إيا جعيلو كدريميو ووحو ننكو جعليه taa waxa u daliila ilaahay quraanka markuu sifeynayay dumarka jannada jooga oo ay kamid yihiin dumarkii mu'minaadka ahaa ee dunida iimaan ku dhintay ahlu jannah noqda kamida dumarkaasi jannada jooga ilaahay markuu sifeynayay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku sifeeyay inay yihiin kuwa ragooda jecel inna ansha'nahunna insha'an faja'alnahunna abkaran uruban أترابا با إلهي وحويا با إلهي عربا هوينك جنادو كبرنا مسلمات دي إن أهل الجنة لدقا نقطة وهو حدين تكو ياريس يعني أهل الجنة ودقا فيعا جنة وحي الله ودقا وناكسن سدرادات كبرنا مسلمات دي دوني دي تشوكتانا إن دقا كانوا كلايا لتا وشيء مطلوب له بهاي ولولا هدي آنو أهين ننكو متكفر حيا إني هوينتيسو جعشي هدانو أهين إلهي وقمش يغن نمعادا وجنة كوهلا يينيت يعني ميا الله وران لها جنة نمعوين كاد نمعوين هولي سوى حكمي دا لولا أنا أهين من فطرتي إنو كفر حيا كبرارا يو كوكلا بدنا يو هدي هوينتيسا كم مغطر لقن أما هذا أما صعد أما موقال أما وح سوتشي تو موتشينا يينا يتشعشي هذاك موغطو سيدا وقيت بل كتب التفسير عن تلمامو كلمة عربا أو عربا لبدا قراءة كادون تباخري واسكمي ده وحين هذا المفسرين تشنقوا البيكلي ينبولي ابن القيم في زاد المسير كيسة قولك كوادا علماء كفسرين وحكمي ده العرب وحويا بولي أنهن المتحببات إلى أزواجهن وسيدة وعوفي بن عباس كورينيو وأنا قولك ومجاهد لقصوا نقلينيو سعيد بن جبير ابن قطيبة إمام الزجاج علماء دا صورنا بايكو تكتي وحوليا هي عروبا تهوين كجنة اللي وحويا أنهن المتحببات إلى أزواجهن وشرح دون وقوة استعليسينية رقودة قولك اللبات وحو أورانا يا عربك يكون فصيرينا أنهن العواشق وقوة إيجا عشق وهيبا كي هو رمحولها وقوة استعليسين إياه من كده كان وحو لي يضا لفتيده أي عشق وهيا وأنا سيدة ابن عباس علي بن أبي طلحة وكورين أيه وأنا قولك وكنت غي حسن يا قتادة يا مقاتل يا مبرد يا مجاهد لفتي سو قول بعد ولي قولك صدح هذا عربا وحي كنت المامان الحسنة التبعل وقبض الصدف في عن ولد قنت نين كده اسنا أبو صالح يا ابن عباس كورين يا ابن عباس صدح قول بولا كورين يا مركا وأنا قولك كنت غي أبو عبيدة قولك أفراد مسألة ترى كنت المامان وحوي يعني عكرمة لقوريو الغنيجات
alghanj ghanija jaariyatun ghanija marka la yidhaha ghanajku waa takasurun wa tadallul waa isjejebin waxay yidhahdaan waa wax ka mid ah wasaa'ilka xubbiga si kale marka loo tilmaamo ibnu zayd qowlkiisa ugu dambeeya wuxuu leeyahay alxasanat alkalaam axad almufasiriin maalan haddaan aqwaashiisa soo guuriyo ibnu cashuur fi tafsiirih wuxuu odhanayaa curub waa jamcu caruub bifatxi alcayn ويقال عربة بفتح فكسر فيجمع على عربات كذلك وهو اسم خاص بالمرأة وقد اختلفت أقوال أهل اللغة في تفسيره وأحسن ما يجمعها أن العروب كلمة تنوحلي وكلمة دمرك كوكارة ولغو صفية أهل العلم وما أهل اللغو مركا يفسر أيانا معنى يالك لقد سميت المامان بوري لكن وحان شيغي يا بوري وح كل مياه haweenkan jannada sifadatan lagu sheegayay caruub gabadha lagu sifaynaya macnaheedu waxa weeyaan buu yidhi almar'a almutaxabiba ila arajul waa gabadha ninkeeda isjeclaysiinaysa aw ilatii laha kayfiyatu lmutaxabiba buu yidhi ama waa gabadha dhaqankeedu uu ka muuqdo inay rabto ninkeedu inuu jeclaado wain lam taqsid ataxabub buu leeyahy ومحوكة المامية وحلي بأن تكثر الضحك بمرأة الرجل أو المزاح أو اللهو أو الخضوع في القول أو اللثغ في الكلام بدون علة أو التغزل في الرجل والمصاهلة في مجالسته والتدلل وإظهار معاكسة أميال الرجل لعبا لا جدا وإظهار أذاه وحوكو فسير يا شيخ ريولي عروبك وحالي هذا قبدا ننكيدا إسجعليسينيسا ama uu ka muuqdo dhaqan muujinaya inuu ninka kane jeclaado ha noqoto buu leeyahay dhaqankaasi mid ku saabsan qosol ama kaftan ama hadalkoo la jejebiyo ama wax tagazul tilmaamaya yacni wuxuu tilmaamayaa un kayfiya wuxuu kala soo guuriyo uu yidhi waa waxyaabaha marka ay mas'aladu xaaraantatay qur-aanku uu diiday yacni mas'alo ogsoonow xalaasha iyo xaaraantu gabadha ajanabiga ah inay hadalka jejebiso ama ay ka muuqato inay ninka doonayso ama waxaasi oo dhan waa xaaraan qur-aankuna si cad ayay nusuustu tilmaamaysaa cagsigu waa xalaal bay culimmadu leeyihiin marka cagsigu waa matluub yani nebigu halku ka tilmaamay ninku hadduu gabadhiisa u tagana ajar baa loo qoraya waxay yidhahdeen intaanu shahwadeeda gudana ajar naloo oo haddaa la tagtaan buu nebigu yihi maxay حارانت هذا لك تنتم يندب الأيدين قرين ولذلك أي ابن عاشور وحليه وسيد إلهي بليه فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وحلا إلى هذا الكهتش بننا أو يؤذن طلب كي قلبي سبكي لكن مركي شوكت الله بدي حلاشها هذا الكوين يتشبيسا سوء طلبه كي حلاشوها وحي ممنوع طاهي محي خارج الزواج إنه وركا كان لا تماطه أما سيلهي وحليه ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن عقا يدولك كنت منها وانتو مركا هالكاميرا يسو سي الله مقلا محي تشنشمي هدية وحي سيدته هدي قريقة تشوكتو ودقيقة لا تشوكو عقا يميشي تشبين كرتبها تشبيسو سي ودقيقة يوسو تشبين كرتبها يعني وحا انه لنا خارج كممنوع بكويه هي وحنا يا محي في بيتها انه نقضه شيء دينها كبنان بل اعماش اي تلماميان عكرمه وحو كلو تلماميا العروب اي الملك ابولي ملقه وكلمه دراهي بل هو متملقه هلك كتبي ملق وقف هذا الك تشبيه او قفك اسو دول دغو او دعيو او intii loo baahnaa in ka badan bay yidhaahdeen ama markay joogta bay leeyihiin beydka ninka iyo gabadhiisa haweenaydu inay dhul isdhigto oo ismiskiiniso oo ducayso oo barido oo odaygeedii hiya almaliqa buu leeyahy hiya alcaruub ayuu ku fasiraya bale culamada qaarkood ka fog baabay ku fasireen oo waxay yidhaahdaan caruubnimadu hiya alghalima bay yidhaahdaan ghalimaduna waa hayajaanu shahwat الnikaax min almar'a wاlrajul labadaba صدف إمام البخاري
marka uu tafsiiraya fi xadiid al-Bukhari fi tafsiir al-Ariba ay al-ghanij buu ku tilmaamay wal-ghanij fi al-jariya waxa ila takassur wa tadallul wa isjabin iyo isduldhig إمام الغزالي في إحيائه وحليه هي العاشقة لزوجها المشتهية للوقاع به وبه تتم اللذة سيدا وقاد وحلاني هواني دا مسلم كا قرية كان سوء للسنان كارو وحوبة هني قرية نوينو أكادا قرية چنة كچري قرية نوينو أكادا محي قرية چنة كچري guriga jannada ka jira haweenta joogta hadii la yiri waa urubana traba tani inta ay matali karto waa inay matashaa wax ceeba markaa ma aha marnaba waxa ilaahay xural caynta ku sifeeyay inay gabadha muslimadii ku sifowdo ceeb ma aha ceeb markaan leenahay waxaan u jeednaa ma aha wax laga khajilo ma aha alxayaa qayb ka mid waa madmuum qayb ka midina waa mamduux waxa sharcigu baneeyay in laga xishooda waa madmuum bayleen kuma jirto maxbuubaadka waxa la jeceliyo kuma jirto bal quraanku markuu tilmaamayay ragga iyo haweenka waxa la yiri uhilla lakum laylata siyam ar-rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna wa min aqwali al-mufassirin fi ar-rafath waxa yiraahdaan aslu lugha rafathka waxa lagu tilmaamaa qofka oo ku dhawaaqa ifsaax bima yukna anhu aw qawl al-fuhsh baynadan hadalka markuu qofku caadigu meel ka hadlayo ka khajilo ama si aanu ku dhiiranin inuu yiraahdo guriga se waa la isu mar dhigtaaba wax laga khajila ma yaalaan sadaradeed kalimatu rafath ay culimadu leeyihiin baa loo adeegsaday jimaaca oo muqaddamaadkiisa looga jeedo idan meesha tan waxaan tilmaamayaa waxa weeyaan الأستاذة مريم الناجم بوحي لهذا هوانته وكتلة متأججة من العواطف في ترسيدة بقى وكوس كالقعلة وكرية بيتري لكن جفكو حكي ما دابا لهذا هاي درينك حشوتك اللي سياق الضن اي كلا جرين ويدي بولاده وحي وباهنين لقى حشوده يا وحانو باهنين لقى حشوده اما سكاله هدانو تلمامه بيلادي waxa loo qaatay in qofka waqaarkiisa iyo simadiisa iyo shakhsiyadiisa iyo deganaantiisa ay wax u dhibayso cilaaqada zawjiga waxa ku salaysan ee baabkani waxba uma dhimaan bal waxay dhaadaan gabadh badawiyada reer miyiga ayaa qamiis cas iyo waxbay qaadato xinxinaysatay dabeetana tusbax bay qaadatay baa la yiraahdo meel bay fadhiisatay way wardiday qolaa waxay ku yiraahdeen ma bacda hada min hada labadana waddo kala fogaa inaad cusbarato oo mariya xidhxidhato oo iska dhalaaliso haddana aad wardi meel la fadhiisataa waa laba kala fog bay ku yidhaahdeen markaasaa waxay tidhi bay yidhaahdeen beyt ay leedahay lilaahi minii jaanibun laa udayicuhu walilahwi minii walkhalaacatu jaanibu waxay tidhi ilaahay dhan buu igu leeyahay aanan rabin inaan dayaco dheeldheelkiiyo maradhigadka ninkayga xaggiisana qayb igu leedahay yana aan la rabin inaan dayaco bay leedahay yani labaduba waa bannaan yihiin tanna waa baab kale oo ilaahay baneeyey markay gurigayga joogo kanina waxa weeyaan bay leedahay wardigii aan u haynayay oo aan barayay ولذلك يا ابن عساكر بقى وحسون أغليا بلال ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري وتابعي أبو موسى الأشعري بقى ووجي صحابي اللي أورنشري صحابة النبي كتر سنة إسنا أمير بصرة أيها هانشري أيها قولا جلسدي سوى فرد دبو حكيري ما العروب من النساء والقرآن هو كان عروبا أترابا شاقيه هوانك واتي تعروبك هاي قال فماجو dadkii waa buuqbuuqeen markii ninkii ugu weynaabay amiirka magaaladana uu kalmada tan weydiiyay waa la buuqbuuqay dabeetana waxa soo galay baa la yiri isxaaq ibn abdullah ibn al-harith ibn nawfal ibn al-harith ibn abd al-muttalib ibn al-hisham ayaa soo galay in hashimiya nabi maxamed ay isku abtirsiiyeen alayhi salatu wasalaam oo isna culamadii waqtiga joogtay dadkii markuu ninkan uu soo galay buu wuxuu yiri qad jaakum man yukhbirukum fasaluhu war haduu yimaado ninka waramaya ay isaga weydiiyay buu ku yiri hadaa idinku ka warwareegteen oo sheegi weydeen
kan aalubeytkaabaa ka warramaya weydiiya buu ku yidhi waa maxay baa la yidhi wuxuu yidhi alkhafira almutabadila lizawjiha waa ta xishoodka badan markay meesha kala joogto ninkeeda markay joogtana waa ta u furfurana u mardhigata isu dhul dhigta dabeetana gabay buu tiriyey uu leeyahay waa ta la yidhi yucribna cinda bucuulihina idaa khalow waidaa hum kharajuu fahuna khifaaru markay raggooda la joogaanna waa curubka kuwa lagu tilmaamay xagga dabadda markay u baxaanna waa khifaar yacni alxayaa shadiid baa la yidhaha khufriga waa kuwo aada u xishood badan sidaa awgeed waxaynu tilmaamaynaa gurigu si uu u dhisnaado oo guri saciida uu u noqdo waa inuu noqdaa guri kalgacalkiisa uu joogto yahay kama warramayno cishiradii ahayd bilmacruuf in lagu dhaqmo iyo baabkaasi maaha baabkaynu tilmaamayna si awgeed buu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh isna wuxuu tilmaamaya xadiidka jaamicu saqiirka ku qoran saxiixa uu albaani ku tilmaamayo alaa ukhbirukum binisaa'ikum min ahli aljanna ma idin sheegaa buu nebigu yihi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh haweenkiina ahlu jannada ah sifada koowaad uu nebigu siiyey wuxuu ku sheegay alwaluud alca'uud calaa zawjiha التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول والله لا أذوق غمضا حتى ترضى النبي عليه صلوات الله وسلامه عليه هوانكي نكو أهل الجنة وحويا الودود وهطني كذا جعل كبرنا كسي فوضى جعلك كان أهل الجنة هوانك مسلمات كدوني دشوجة جنة جلية صفدي لوجوه الرئيسية وحكم دينا نقطة محي الودود العقود تجعلني كده ووحدة ليسة وعقودة يعني عائدة بالخير ونفع إلى زوجها خير يوانا يقول لك كده كل نقنيسة تهدي أي واحد انتو أما يضل الديبه انت إنك كده قعنت قبضت هذا والله إن أنا وحبر من إن لا ترالي نقطة موياني هدي حتى يدا الله دبابو النبي يقول يا مسه يدا واحد بتوع مركز تبع وتاجن إن كده الرالي جالسه ولذلك يا لورا دويل قبل الله يدا ده مرايكن كله بو كره يبحيان ترجمة ديسا الزوجة المستسلمة